السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتابع نقطة فشيء ده وقتي وياه هذي وعناده ما أنتم حربنا الرمل بوبونا أو شيء إنه براه بشر أنا قارقنا قارهان بينها وين ولا سكاركو marka waxaan rabnaa arintaas inuu sheego wax nooga sheego hooyana hay aad ugu xumaanay bulshada Soomaaliyeed aad ugu xumaatay inuu noo balbalaaray bal sheego bal wixii jira xaqiiqda adiga oo wax nooga sheego bulshadana wax la wadaag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلشو يرالا هذا واني لقبي بيناني لقى شاقي دقمذا حمر ججب صدقة حمر ججب بينا لقى شاقي وح كجيرو مالي قبر لكم سدي مالي وح لكم سدي ما جيرون ما فهمتي هو يدي شالي ساسكو هذا شو واحد انت قبرتي بنت لقى شاقي والكم سدي لدي واحد انت ومدنو محمد محلو بركعنا wax jiro male saldhigaasna waa saldhig oo sharciyeysan oo sharci ku socdo wixii qalad oo maanta oo ummadda nabi maxamed gaaro waa loo ordaa kii oo khaldan khaladkiisa la saaraa kii oo garle gartiisa la siiyaa saldhigaas aniga xumaan kama sheegi karo sheego waxa ku weydiinaya ma laga yaabaa in xagga oo saldhigo kale cabsi kala kulantay amba astri alla ilaahay maanta waa laga awood badan ilaaha awood leh buraha bulshada ku qanci gabadhaada oo dhiban mase wax waa runa leedahay bulshada magaalka in laga xumeeyo la rabaa iyo dawladda shaatiga loogu dheero wixii run ah oo ilaahay nooga qof weyn tahay noo sheeg bal war aniga waxaan ku dhaaranaa 114 ma sha Allah cid aan ka baqaay mal ilaahan ka baqaa ma fahmosin horta adduunyada waxaa la rabaa in run la sheego been wax ma taro sax ani gabarteeda oo maanta oo been laga sheegayo oo hadal been loo sheegayo la dhahay arintaas aan rabaa iduub waa ii xiran tahay sababta loo xiran maxay tahay sababta isku duubta maxay tahay oo tiri waa gabadheeda la kubsanayaa waa saan yaa ka dambeeyay in isduubto been hawarta ka dambeeyay hawartan ka dambeeyay hawartan been le waay hawartan nijaas dhale waay waa ayna ma ahe waxa waay sababtoo ah waxa degmadii dhalay been ka sheegtay saldhigii xamar jajab ay been ka sheegtay yartaas been lee waaye ummadda nabi maxamedow wax ka jiro ma laha raali ahaada qalbigiini saafi ka dhiga qoftaas qof oo iida naftigeeda dulaysan oo daroogeesan waaye saan u dhaaran karo weli sababtoo ah waxaasoo kale ma la samayn karo jirkayga kacay gabarteeda waa xirtaa gabadha maxaa u taa marka sheego aniga walaalkayga dhalay gabarta jeelaani sheego munye anigana maxamed sheego munye leedahay adeeraan ahay waa gubta anaga koriye gabarta cunta maqangaara ma soo waa ana yar gabarta ma sha Allah gabar qaangaar waaye oo kistoo yar maskaxda loogu jiro oo waxa iska ah marka waa gabar iska bashaa sheego hadii aragto waa aragtay idane ma fahanti qofkii oonay waa u oonay marka wax leelo maleena inay oo qof weyn tahay qoftii مفهموسا جبرتيدي مانتا شرخولة جلس. حاكو كل فوائد إن أركا سميسو أيضا وحبا أركين إلهي لب أكوين يعني لبك برشيد لو ذاكتو أمد الصومالي اسكو عيسو حتى هير أي قارتي دقمة الدعوة دقمة أحمد رجب محاكي أنا باهي وقينس محيطة إني قبل إذا تهدي إذا لكو بصومالي كوفصدي إذا بدرا أوجيسي جبر لا يكوفصدين مالها ما كستين إذا بدرا أوجيسي وحي قدهدين إذا بدرا قدهدين إلهي قفل نرتو وحواي قفتاس إلهي وقفتي ابن آدم كين وقفتي بيني وشيكتي ولا له أمدنا محمد وحك جيران مالها وحاس شعب كصومالي رالي هذا وحلقوا بصدي مالها شيطان واي تنساس دهدي قبرتي بيني وشيكتي وحلقي ما دام قبل هذا رؤتها هاي منو جاي كرتا أو مرشد مبلغ قادنا أنا قبل سوفريس إن ماشى عن عدينا وحجري نعم أو إلهي أو نقول أوكي عاو هرت ماشى وحوسوف ديستي أنا بدينا أمدنا محمد بنت وشاب مفهوم صح صوبته برشيد واقعدي صح واي ورقبرت قبر يرواي مفهوم صح هذيك الضمير كذا مقصينا أبعد واجوجا هاي ذا واجوجتا أنت دوبس وهو ذي هاي ذا بوي أنت سنة محيطة مركو فراه برشيد ديس معناها يرتي لخلد دواي ما هي مدة تاجن ولا هي الصور هذا وسان كاميرا هذا سان كايد دوبنوي هذا أنا كادوب تمام نعم قبل كاميرا هي محيطة جبرت أو كاميرا هسي وجبرتي أو أنا أدركو أهم كل شيء ولا خلدي أو هذا الكاس أو معناه أو واحد بنت عن شيء أنا الدوب أنا مقوي كان وأبين كان مقوي وحن كواكي يريس كان قوا
sheegow bid aan u kala baandhaanina gabadha oo wax duubto ma adeer u tahay mase gabadha la kufsado oo la sheegayo meesha jiifto labada gabar afka allah ku noqo aniga gabarta la qalday oo wax duubtay aan adeer u ahay ha hadda aan fahano gabadha meesha jiifto waxba uma soo waxba ma ha gabadha yarta iga duub la dhahay iyo gili oo la qalday la qalday ha taasaan adeer gabadhaas ma hadlayni ma ogtahay maya duub leeyahay على qaylana islaantay ahayd islaanta maxay isku tihiin islaanta annaga haddaan oo maanta oo ilaahay aan ka cabsahay deris leenahay ma fahantay adduunya deris aakhir deris ma ahe wax kaloo isku nahay ma jiro waa gartay cunugtaa kee jirtaa marka oo wax duubaysay oo warkaa soo dhigtay baraha bulshada oo xagee adeerka wata aawe waa joogtaa waa xiran tahay iyadan islaanti aawe islaantana waa xiran tahay gabadha yarta aawe waa xiran tahay aabaheeda waa xiran yahay والله عكر wiilkii oo laga sheegay beenta laga sheegay oo waa la kubsaday la dhahay lama toorey inta laga geliyay aabaheeda ka geliyay waa been waa xiran yahay yaa qagmada yaa la kicinin yaa been ma yaa la isku sheegin ilaahay ha laga cabsado war tan waa adduunyo war beri aakhira ka dambayso war adduunyada waa laga tagaa ilaahay ka cabsada rasuulkiisa ka cabsada ummadooda saa ma aha war dhib haliin soo marna ahaado dhib kale ilaahay mana geliyo war hadda diintii ha u dhawaano walaalayaal diintii ha u dhawaano maxaa u diina diinta maxaa dhacay war gabdhihii waa xumaadeen wiilishii waa xumaadeen war ilmihii yaraan waa xumaadeen fasahaad islaamihii ka daran rag iyo dumar waa wax oo maanta oo isdhaan ma laha geedahaan sii loo keenay ma fahanteen marka ummadda nabi maxamed aan nahay in la isxaxaqto oo been la iska sheego oo tiktok ana jalaad tiktok aan ka saa TikTok aan ka saa jalaad TikTok aan cuni jiray ana xamar weyn aan ku cuni jiray waxaan dhahaa TikTok aan dhahaa wixii xunoo TikTok ya ma fahanteen TikTok af Soomaali waaye TikTokna waa ayaga la baxeen ciiday soo saarteen marka wixii xunoo dhan xagga laga helaa oo been laawe run iyo been wax isdaba wareegayo isdaba wareego TikTok laga helaa marka fahma bulshada fahma ummad Soomaaliyeed fahma gabadha duub islaanta deriska ah ayaa waxay tiri sheegow gabadha adeerku u yahay kala ayda adiga wadatay kaamiradan iga duub waa fahmi kartiin صح kala iga duub eedo inaa bulshada wax u sheegtaan rabaa maxay lacag ku raadinaysay ma dawladda ku aflagaadenaysay ma shacab bay wax ka sheegay wallahi ilaahay hadda ma qabiilo isku diraysa ilaaha og allah og anaga shacab aan ahay anaga dad masaakiin aan nahay anaga oo afkooda afmaal ah dawladda ma nihin shacab mucaarad ma nihin muxaafadna ma nihin waxaan ahaa dad bulshada ka qoslisiyo waxaan ahaa dad bulshada wax u sheego samaan inaan faafino maahane samaan labada dhinac inaan ka sheegno waa qalad maya ma fahanti waay anigu afaaras ma galna maya waxa u hadalnaa waa shacab waxaan nahay waa shacab waxa ka qosdan waa shacab anagana waa shacabku inaan baan u sheegno waa ceeb sax gabadhaas yartaa oo la qalday waa 12 jir oo la yiri waa yartaa ilmahan yarkan waa arki kartaa way duubtay aqligay ka qaad hadda cunugta yartaa way xiran tahay gabadha way xiran tahay islaanta way xiran tahay sheega walaalkiis way xiran yahay kii cunuga beenta laga sheegay way xiran yahay saldhigi madaxda gabarta aabaheed waa xiran yahay wiilkii story ku dhuftay dadbadan ajaafa loo geystay muqdisho cabsi lagu abuurayo waa ka wax cabsi ma jirto waa imaan kartiin ilaaha cabsi leh cabsi ilaaha iska leh hal ila waxa laga bulshada adigoo isdejinayo anoo isdejinayo bulshada waxaan ka codsanaa iyo dawladeedna waxaan ka codsanaa bulshada Soomaaliyeed shacabkeygana waxaan ka codsanaa waxaas ma jiraan waxaas ka raali ahaada waxaas wax dhaceen waaye wax oo wax waaye oo ilmo isku keeneen waaye khaas ahaan waxaan raali gelinaa sharciga meel xun ugu dhaceen sharciga raali ahaw ilmo waaye shacabka Soomaaliyeed beenta loo sheegay shacabkii yaa been u sheegeen sheego waxaan rabnaa inaan balan qaadno bulshada horteeda inaan keeno hadaa balan qaadi kartid hadduu ilaahay aniga dadkaas ma aqaan dawlad kuwaasna ma aqaan inta la xiro ma aqaan adiga walaalkay waa walaalka hadduu ilaahay waxaan rabnaa kula damqanayo waa dareemi karaa war anaa danqaday waa aniga kula damqanayo mar mikrofoonka dadku hadlaa walaalo nacam ma fahanti waxaan rabaa inaan dadkii horteeda cunugta wax laga oo waa la qofsada digi inay soo istaagto baraha bulshada oo anaga kale tan u tagno mar aan soo wareysano hooyada dhibaatada u geysatay baxarka in dadka geliso waxa soo dhan waxa dhankeeda ka mas'uul ah habartaasa wax dhanka mas'uul ah sababtoo ah ma ogi saldhiga mayrta anay oo iyada oo macnaha ay burburiso ya maskiinka oo meesha oo xukumaay mayrta anaa meesha laga buriyo waa ka suwaasana qoftaas waa idib daran tahay degmadana waa ceebeysay saldhigana beenay ka sheegtay
raalli ahaada walaalahey ummadda nabi maxamedow isdejiya waxaasoo dhan ma jiraan waa been wax ka jiraan ma laga yaabaa inaan soo fariisino bulshada la wadaagno nacam hadduu ilaahay nafta nagu sino ilaahay yiraahdo sheegu aad iyo aad u xanaagay sheegu beenta la sheegayo ka xanaagay inanta yarta oo haddana wax iiga duub la dhaho adeerka u yahay iyo islaanti horta aniga amran ahaan wax jira ilaaha og walaalkan laakiin sidoo noo sheegay waa wax laga xumaado wallaahi billahi inuu cunuga iga duub la dhaho haddana I don't know kolka wax loo saaro arrintaas meel ay leedahay shacab dariska inay iskaagaadayaan isdagaalayaan laga yaabaa waa laga yaabaa be dagaal diris aan dhihi karaa dagaal dowladeed ma aha maya dagaal diriseed waaye ma fahanti marka degmada inta ka qaybta kalena insha Allah waa idin soo duubi doonaa degmada xamar jajab waa tageena dib ma jiro waa degmo fiican waa ciidan fiican waa taliya fiican wax xumaan oo jiro ma jiro meeshaas aniga xumaan kuma arkin wax oo dhib ah oo fasaad kuma arkin waxaan arkay qofkii ooyo in loola ooyo haddii maanta oo meel oo xataa lama daris isdagaalaan markii taleefaan la diro oo ciidamada loo diro waa soo ordaya waa la imaanaa dadkii waa la kala xalinaya insha Allah waqtigiisa kale waxaa idin leenahay hadduu ilaahay yiraahdo cunugta adeerku u yahay ee sababta ku kalifta inay ka duubto inay bulshada u gudbiso insha Allah haddaa jaanis helna xataa hooyadii inaan u tagnaa rabnaa insha Allah aan idin hor keenno xaqiiqda jirtana aan ogaano oo ni cadeeno hadduu ilaahay idmo waa kay inankana bulshooy raali ahaada wixii ma jiraan qalbigiina saafi ka dhiga Soomaali waa wiil abtigiis Soomaali waa wiil abtigiis halis cafiyo annaga waxa waaye dad dhib badan maryaanahay dhib kale marabno hadda ilaahay aan tuugoona waxaan taaganahay cid naga maqan oo dibadaha naga jira alloo noo soo aroori beledkaana dibid waaye aan doona hadda anagoo maanta oo maasha Allah aan naqani haddii anaga oo dhaxdaani leh xumaan oo la sameeyo soo naqdaan no siyaasad ma aha waa xaafid diris meeshaan wax siyaasad ma jiraan dad oo war haddan fiirin midaan ma kuu sheegaa adduunyada waxa qasooyan kuu sheegaa war geedko oo inta laga shaayo maxaa la dhahaa ii sheega qalinka manya sheeya jira oo waaba la soo gadaa nyaniisko intaa la geliyaa tubaakada odayaasha cuni jireen manya tambu oo la dhahaya maxaa la tumaaya tabu tabuur intaa laga shaayo tabuur 10 عشان ما كابور 10 أصلا مرخان على كأن أنت على قشاة بسم الله الرحمن الرحيم الواحد مؤكد ولا كبارك ما بيدرس جنا قشيج التباكة كأقان تباكة لما تنبو أي مال نبعتها كاش مسكح الدمان دوري واي وحس توكلك زيزرتا أيه كنيني قول دهايو مجي عيسى إيه مخن كنيني قول ها ما سوباتي وروح دم ولا أجي أديك شو بعدي ها أنا نفتي وحوار مكتمل كي أديك أو الشدنت أو إمادو واحدة وقول صوب بحا مكتمل كنيني قول دهايو يا أخي مجي عيسى إيه مخنه ور كاس العبوه ور عبوني وقسم عيال كيرك وحافظه وحس عباية واكو دي لين عيال إلهي نتوسمع توصل تيك توك كان نيتيني وحواي فسهات كلا ديغايو حالنا لقى دافو جلات التيك توك دافا ربش دافا وح او رسمي ومدو شيغا وح فسهات نو إلهي هلقى عبسدو رسولك هلقى عبسدو كان أدوني واي سوى يا أخي صل على النبي يا أخي اللهم صل على سيدنا على اسكو الشيحو على الشيحو waxaan idahaa dadweynaheeni bulshadeeni raali ahaada insha Allah tariibkiis dambe warkiyo saxan hadduu ilaahay ilaaha laga helaa wax kaste insha Allah waan ila soo anaga waxa iska wanaag iyo walaaltinimo leh bas aan rabnaa xumaan dhan ma jiro anaga ma nihin maya shaasa asasa dadweynaha jidka toosan aan ku jirnaa marka waxa waaye walaalahayga ninkii naga maqan gurigiisa waa imaan karaa ma fahanteen anaga dhan waa joognaa قف وح مله إن شاء الله سدا وحايد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبات أبي وناسة